السلام عليكم كسو دو عتبكي ugu dambeeyay ee koorsada waxaan rajaynayaa in aad wax badan aad ka fahantay barnaamijka aad dhiganaysay oo wax badan oo dheeri ah aad maaragtay si badan aad maaragtay u fahantay waxaan rajaynayaa ugu yaraan an aad isbedel badan maaragtay aad sameyn doontid insha Allah markii aad koorsada tan dhameysatay waxaan marka insha Allah qaybtan ku arki doonaa waxyaabaha aad sameyn lahayd at the end of the presentation ama gabagabada presentationka ayaynu qaybtan diiradda ku saari doonaa waxa la yiraahdaa finish your speech ama waxa la dhahaa finish your speech before the audiences finish you marka waxa weeye concept waxa weeye isku day inaad hadalkaada dhameysid inta aysan dhageystayaashu iyagoo adiga aysan ku dhammayn macnaha xigmad waxa weeye waxaa la rabaa si walba u fiicanta lagu sacbinayo lagu taageerayo oo dadku maartay ku dhiirigelinayaan oo dadku maartay ku soo dhaweynayaan oo dadku sida wax u sharaxaysa ay u soo dhaweynayaan waxa laga doonayaa in aad sidoo kale hadalkii soo gabagabto dadku inta ay ku taageersan yihiin baa hadalkii soo gabagabto laakiin ma inaad iska sii macaansatid oo iska sii wadid sheekada oo iska sii hadashid oo iska sii sharaxdid oo iska fogaatid dad waxa arkaysa microphone marka loo dhiibo aad nacaysid aad leedahay waxaan barada microphone ka maxaa u dhiibo dadkina runtii ay dhibsanayaan oo leeyahay war waxaya naga soo maaragtay isaguna wuxuu moodayaa inuu xigmad iyo cilmi badan iyo leeyahay iyo ismooday si walba cilmi badan tahay bini aadamku waxay isu arkaan inay wada simeeyeen marka qofkani ma rabo too much inaad wuxuu sharaxid wax uu san doonay yes hadduu dee wuxuu qof ku yimid wuxuu ku weydiiyay ka sharaxaysa waa wax kale laakiin marba haddii wuxuu presentation yahay sida looguma talagelin waqti dheer inuu socdo waqtiyada uu soconayo waa wax kooban maybe saacad maybe 1 hour maybe 20 minutes maybe 5 minutes maybe 6 minutes marka wixii waqtiga loogu talagalay ayaa la doonayaa inaad ku dhamaysid marka aad fikrad aan barnaamij qof ka dhaadhicinaysid waxaa la doonayaa inaad warka soo jirtid inta uu soo qofku asagu warkaada soo jiray haddii kale automatic lagtiisu waa balogaraynaysa uu wax kaliba gelayaa Facebook iyo WhatsApp iyo hawlo kale ayuu markaba maaragtay hore ka gelaya marka insha Allah waxaynu rajaynaynaa hadii la yiraahdo qaybtan markii aad warkii soo gabagabaysay waxyaabihii aad sameyn lahayd ayaynu qaybtan insha Allah aynu ku qaada dhigi doonaa waxa kamid ah qaybta su'aalaha oo ma aragtay sideeda waxa la sameeyaa presentation walbo aad sameynaysid inuu presentationkaada uu noqdo qaab interactive ah aadan wixii aad maanta dhan aad iska wadin qofkii markaad adoo wada hadalkii waxa wada inaad dadka su'aal ku celisid sometimes baa la rabaa dadka inaad wax weydiisid baa la rabaa sometimes si isu arkaan inay involved yihiin haddii kale dadka qayb aseexanaysa qayb ka hordoonaysa waxyaabaha la midka ah ayay kugu dhacay sidoo kale gabagabada barnaamijka waa meesha qofku ama ku guuleysto ama ku guuldareysto haddii qofku sidii loogu talagalay u soo xiro waxaa fududaanaysa inuu si fudud ugu guuleysto barnaamijkiisa ayaa fududaanaysa qaybtan marka insha Allah darashka halkaas ku joojinayna insha Allah waa inoo casharka xiga insha Allah waxaan ku arki doonaa sida su'aalaha looga jawaabo ayaynu arki doonaa marka ku leeyahay su'aalaha si looga jawaabo waxa weeye aan ku sharaxay waxa la yahay oo su'aal maxaa uga baahnay su'aasha waxa aan fahansanayay maxaa uga baahnay in sheegto si su'aal looga jawaabo macnaha kama hadlayo detailski waa su'aal lagu weydiiyo haddaad fahansantahay waad ka jawaabi kartaa laakiin marka presentation sameynaysid dad ka aqoon badan ma meesha fadhiya dad adiga ka waay aragsan baa fadhiya dad adiga maaragtay ka duwan baa fadhiya sida wuxuu arkaysi si ka duwan wuxuu arkay fadhi marka waa inaad taqaanid qaabkii aad isugu soo diyaarin lahayd su'aalihii laga weydiin lahaa wixii aad diyaarinaysid waa inaad taqaanid qodobka koowaad waxa weeye anticipate lines of questions marka waxa laga doonayaa inta aadan presentationkii aadan soo jeedintiisa bilaabinba oo aad preparationkii iyo diyaar garowgiisa ku jirtid in aad diyaarisid meelaha su'aalaha laga weydiin karayo oo dhan qodobadaadu meelay taabanaysaa meelahaas inaad si fiican soo jeedaysid su'aalaha laga weydiinayo dhan oo aysan hadhow dhicin qof wax iska soo aqriyay oo markii wax laga weydiiyana hal xabana aan ka garan karin wixii la weydiiyay ama dhahay aniga su'aal lama weydiin karo su'aalaha waqti uma hayo waa dhamaaday wax noocaas oo kala lagama doonayo inaad samaysid in fact waxa la rabaa inaad ku soo talagashid meelaha su'aasha laga weydiin karo oo dhan ayaa la doonayaa waxa dhacda sometimes marka qof su'aal la weydiiyo sometimes xitaa inuu baxanaaqaba oo su'aasha aniga la weydiiyay si wadadka madaxda oo kale dadka kalena ay maaragtay iyaga laftirkooda ay soo kuma soo talagelin ayaa dhacay
marka runtii waa lagaa guuleysanayaa haddii aad si walba khudbad fiican soo diyaarisay oo aad su-aalihii aad ku fili karowday su-aalaha qaabka loo jawaab ka mid ah rehearse inaad isticmaashid oo ah inaad dib usoo bilowdid su-aashii qofka ku weydiiyey hebel ama hebla waxayna weydiisay su-aashan oo ku saabsan sidaa iyo sidaa runtii sidaa iyo sidaa waa saa marka saasoo kale qaabka marka wax uga jawaabtid iyadana waa qaabka macnaha wax looga jawaabo waxaa kaloo ka mid ah don't rank questions su-aalaha lagu weydiiyey ha isku dayin inaad cabirtid oo aad darajo kala siisid qof baa su-aal ku weydiiyey markaasaa waxaad tiri su-aashaadan aad bay u fiican tahay waxa weeye su-aashan waa number 1 waa su-aasha ugu sarreysa oo la weydiiyey mid kale su-aal ku weydiiyey markaasaa waxaa ku tiri su-aashan waa su-aal maaragtay liidata runtii ama waa su-aal xun baa tiri marka waxba adiga ha ranki garaysay su-aalaheed wixii lagu weydiiyo un ka yara jawaab oo keliya haddii ilahay ku idmay sidoo kale keep your answer brief su-aashaada weligaahay allaha ha noqoto jawaabtii aad ka bixinayso ama su-aasha lagu weydiinayo jawaabta aad ka bixinayso ha noqoto mid kooban oo inaa maanta oo dhan wax aan loo joogin oo dheeri aad sii sharaxday waxa weeye adigana waqtiga kaaga ciyaaraysaa iyo guushii iyo wixii aad rabto inaad gaadhid dadkiina waqtigaad uga ciyaaraysaa marka waxa lagu weydiiyey keliya ka jawaab waxba ha ku darin waxba ha ka jarin sidoo kale be honesty noqo qof maaragtay daacada biaskana iska ilaali waxaa kaloo jirta avoid negative words iska ilaali erayada negative-ka oo dadka dhaawici kara inaad markaa su-aalaha samaynaysid hadalla maaragtay adag hadalla qallafsan hadallo qofka dhibaato u geysan kara inaad samayso qofku audienceska iyagu way ku weerari karaan waxbay si qabdaran ku weydiin karaan weligaa waxaa la rabaa inaad ugu degan tahay qofka degan ayaa guuleysta ugu dambeeya waxaa laga doonayaa sidoo kale don't repeat the negative question qof baa su-aal xun ama ku weydiiyey ama negative ama khaldan buu ku weydiiyey waxba ha ku soo celin su-aashaas ha ku soo laba celin oo ha dhihin wixii erayadii fooshbay uu yidhi soodii haddana ha usoo dhihin ee ka gudub oo si kale u sharax haddii ilaah yidhaahdo clarify questions su-aasha inaad clarify garaysid example qof baa su-aal ku weydiiyey wixii si aadan u fahmin inaad si fiican qofkii ugu celisid laakiin inaad maanta wax iska sharaxdid aadan si fiican u fahmin iyadana maarta waxyaabaha la iska ilaalinaya ka mid tahay defer to experts sometimes waxaad isticmaali kartaa su-aashii inaad qof kale haddii banal tahay aad dhahdid qof kale usii forward garaysid haddii aadan markaa garanayn waxaad sidoo kale la samayn karaa dadka ayaa dib loogu calin karaa ayaa ka jawaabi karaa dhihi kartaa qaab farsamaysan ayaad ooyadan uga fakan kartaa wahagan sidoo kale move your eyes off questioner qofka su-aasha ku weydiinaya markaad su-aasha ka jawaabaysid ee qofka su-aasha ku weydiiya isagaa ha fiirin dadka guud uga jawaab waayo hadalka asagoo ku weydiiyey qof walbana wuu qabi karaa marka si uusan u dareemin inaad isaga u jawaabaysid dadka maaragtay si guud ugu jawaab si guudna maaragtay hadalka u dheh if negative question early your response focused on somebody else marka haddii qof negative question uu ku weydiiyey waxaa isku daydaa inaad tii negative-ka ka jawaabtid ama su-aal xun ama su-aal khaldan waxaad isku daydaa inaad jawaabta uga jawaabtid oo qofka aaba ka baboodid oo aad u jawaabtid qof kale oo markaa meesha su-aal kale isna kaa weydiiyey oo su-aashiisa su-aal caadi aad tahay inahaas aynu kusoo koobaynaa haddii aad taqaanid sida runtii looga jawaabo su-aalaha wax badan ayaa runtii ku hagaagay qaybtii ama gabagabayntii barnaamijkaada marba walbo aad barnaamij gabagabaynaysid waxaa lagu weydiinayaa su-aalo ugu dambeynta barnaamijka waxaa laga doonayaa marka sharci baa jira la yidhaahdo never argue with a member of the audience weligaa allaha ha la doodin qof ka mida dadkii ku dhagaysanaya ha la doodin oo macnaha haddii su-aal aad dhibsanaysid ama su-aal aadan jeclayn uu qofku ku weydiiyo isaga waxba ha la doodin oo waqtigii ha isaga dhumin qofkaasaad maanta o dhan su-aal caysanaysaan sababtoo ah qofkaasi wuxuu kaa qaribi karaa si fudud u hijaagarayn karaa ama u qafaalan karaa barnaamijkaadii o dhan ayuu dhinac kale u rogi karaa laakiin inaadan la doodin ayaa ku wanaagsan sida taa beddelkeed look at the question so marka waxaad fiirisaa maxaa la yihahdaa qofkii questionnaire-kii ama su-aashii lagu weydiiye fiiri su-aashii remain neutral and attentive su-aasha adugu waxba negative wax kale si magaranaysaa ha garargarayn just waxaad samaysaa dhexdhexaad noqo markaa su-aasha ka jawaabaysid listen to the whole question su-aasha o dhan si fiican bal u fahan oo qofku ku weydiinayo
pause before you respond intii aadan ka jawaabin xoogaa yara aad mar qof sa ku diin marka way ku soo boodin xoogaa yara sug kadibna ay uga jawaab address the question then move your eyes to the next ama to the others qofkii marka aad u jawaabtid marka kadib waxaad u gudbaysaa qofka xiga iyadoo u jawaabaysaa sidoo kale waxaa jirta farsamo la yiraahdo ABC marka ABC waxa weeye su'aal sometimes waxa lagu weydiin karaa aadan ba aqoon wax aqoonaba u lahayn marka ma haynas adkaysi oo aad dhahdid waa ka jawaabaya wax walba wax aadan garanayn waqti inaad isku qasabtid ma inaad ka jawaab marka haddaadan garanayn ceeb maaha inaad dhahdid ma garanayo marka qaab loo dhahayo ma garanaya jirta salaam waxa dhihi karta I can't answer the question because but I can tell you marka ABC baa yiraahdaa answer by isticmaashay because waa sababaysay kan waxaad awoodi kartaa qofka u sheegto xigmadu waxa weeye qofka wuxuu ku weydiiyay su'aasha waa garan weyn maybe bariiska wuxuu ka koobay ku weydiiyay ma bataqaan bariis wuxuu koobay marka adna casharkaada laakiin bariis ku saabsan waxaad leedahay marka ma garanayo bariisku wuxuu ka kooban yahay laakiin waxaan ku sheegi karaa in bariisku uu yahay shay muhiim ah oo noloshiisa wax macnaha kale oo wixii u dhow oo maaragtay sharaxaad oo kale ayaad siin kartaa adoo markaa u sheegaya ti specifically ku weydiiyay inaadan garanayn marka qaabkaas ayaa maaragtay looga baxsadaa su'aalaha aadan garanayn sidoo kale la soco waxaa jirta maamaa better to keep your mouth shut and appear ignorant then open it and remove all doubt marka xigmadu waxa weeye doubtigii oo dhan ama shakigii oo dhan isheeg inaad ma aragtay dilay ku idmayo inaad iska aamustid oo u muuqatid qof ignorant ayaa waxa oo qof macnaha jaahil ka ah shaygaas la weydiiyay ama waxaas la weydiiyay inaad u muuqatid qof maaragtay jaahil shayga ka ah ayaa waxay ka fiican tahay inaad hadashid oo markaa inaad jaahil tahay toos loo arko sadoo waxa kala tayma marka xigmada waxa weeye isku day inaad marka aadan wax walba aadan daftaf dhihin wixii aadan garanayn ma garanaysid ma aha inaad isku qasabtid haddii la ku weydiiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وحنو already جبيسناي برنامج كين هذا مرة هالكن سو قارتي وحين كان يجنتا إن الواحد بدنا فهمتي بإذن كي وحي عدب وفيرين دونتي كنا نقم دونتي مركز بريسنتيشن دي أرني سيدي على قدومه وهذا قيتنا مركب وحنا وقت لقى الله يقطن بيساء إلى السؤال اسمه أو بروجكت اسمه كبا سوقات وحا نقطي معمولة أيات كمباني كتا كمباني كان وحنا وبحين كرنا ABC مركا كمباني جاز عاد معمولها كتاي وحكشقية نوت بوك أيو كشقية أما معرفتي بوك تا أيو صوصار مركا نوت بوك هدو كشقية أما بوك تصوصار وحوي وحلي هذا إيشك بوك تا وحصوصار معناها عادي أو ardada iyo waxaas ay qaato markaan waxa adigu maamula ka tag waxa ugu aansatay in markan buugta la balaariyo oo buugta ardada jaamacadaha dhigato kale la soo saaro marka waxa la rabaa inaad ka dhaadhicisid maxaa la yiraahdaa boardkii ama kabariga adigu maamula tahay laakiin laga sareeyo kabariga gudiga maartay boardka ayaa ka sareeyo oo go'aanka kabariga iska marka waxa la rabaa waxa diyaarisaa maxaa la yiraahdaa ishag barnaamijkaada ama presentation diyaarso aad boardka uga dhaadhicinaysid in maaragtay ansixiyaan barnaamijkan oo barnaamijkaadana ku saabsan in dee maxaa la yiraahdaa buugta soo saari jirteen nooci jaamacadaha aad rabtid in soo kordhiyo si maaragtay faa'iido badan oo shaqada uga soo xarooto marka bal presentation noocaas diyaari oo bal istijaabi in kadibna aad iska gadi kartid iyo in kale isku day marka insha Allah exercise-kaas insha Allah waxaan isleeyahay ama project-gaas wuxuu inoo noqon doonaa mid aad bal wuxun aad ku tijaabisid bal inaad maartay bal presentation diyaari kartid iyo in kale aad iyo mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.